barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم. magacayga waa Caadil Axmed waxaan ahay arday da'diisuna tahay 16 sano. su'aashayda waxay ku saabsan tahay gaar ahaan arintii uu sheegay Dr. Zakir Naik mar hore in hadalkaaga aad oranayso ciid wanaagsan ama Merry Christmas uu ka yeelayo inaad qirayso fikradda dhahaysa in Masiix yahay wiilka Alle. hadalkaasina wuxuu naga yeelayaa inaan gaalada sidoo kale noqono. hadda arintani aad ay ii yaab gelisay maxaa yeelay Allaha weyn waa uu og yahay in niyadeyda iyo qasadkayga marka aan leeyahay Merry Christmas ama ciid wanaagsan inay tahay hadal aan ku oranayo saaxiibadeyda waa saaxiibtinimo oo kaliya. hadda arinta muhiimka waxay tahay in dadka badankood gaar ahaan kuwa aniga aan kamid ahay waa jiilkayga aan awoodo ama aan la xiriiro aniga dhab ahaantii umada baaldegaan ciidda Christmaska ama dhalashada Ciise, balse dhab ahaantii arintu waa ganacsi ama si kale ha ahaado. arintaas aan ku cadeeyay iguma sharfaysid miya inaan ahay qof fikirkiisu isku dardarsan yahay marka arintan laga hadlayo. markaan oranayo Merry Christmas ama ciid wanaagsan sidee u noqonaysaa gaalnimo? walaalku su'aal ayuu na weydiiyay oo ah inuu saaxiibadii u rajeynayo ciid wanaagsan taasoo ka yeelaysa inay saaxiibtinimadoodu dhisnaato oo ay xoog lahaato. suurtagal inaad berri ii imaato oo aad i weydiiso maxaan u cabi karin koob qamra ah si aan u dhiso oo u xoojiyo saaxiibtinimada asxaabteeda. maxaa dhacay? maxay tahay dhibaatada? maxaysan suurtagal iigu ahayn inaan la cuno qayb yar oo ka mid ah hilibka doofaarka? maxaysan iigu suurtagalin inaan kaniisada la aado asxaabteeda oo la caabudo Ciise calayhi salaam? fiiri walaalkay, kuu suurtagal maahan inaad sameeydo shay kasta oo xaaraan ah si aad ugu gaarto awgeed hadafkaaga dacwada. suurtagal kuma aha inaad wadooyin qaldan u isticmaasho dacwada. waxa xaaraan ka ah iyaga adigana xaaraan ayay ka yihiin. marka aad u rajeynayso ciid wanaagsan iyaga adigu waxaad qiraysaa oo ictiraafaysaa in Masiix Ciise calayhi salaam la dhalay 25 December. taana waxay la micno tahay inuu yahay wiil Ilaahay loo dhalay. arintaasina waa shir. maxay u tahniyadeentoodu xaaraan u tahay? sababku waxa weeye Kirishtaanka ayaa aaminsan in Masiix Ciise calayhi salaam uu yahay wiil Ilaahay loo dhalay. waxa isku mid ah Kirishtaannimada ha ku dhaqmaan ama aysan ku dhaqmin. waxay u dabaaldegayaan isla sabab. waxay u dabaaldegayaan maalintaasi dhalashada. maalmaha kale maxay u dabaaldegi laayeen? sidaa darteed haddii aad saaxiibkaaga u qirto haddaadan adiga rumaysnayn 25 December xafladda baaldega waxaad dhigtaa 10 October. arintaasi ma ka yeelayaan? run ahaantii ma yakaama yeelayaan, way ka diidayaan. laakiin arintaasi kuma diidayso inaad dacwadaada u istaagto oo aad samayso. aniga dacwada waan ku dhex faafiyaa Christmaska dhexdiisa. waxaan weydiiyaa tani waa ballankii maalinta uu dhashay Masiix Ciise calayhi salaam oo maxaa xafladda loo dhigaya? waxay leeyihiin waa ciidii dhalashadii sharafta badneed. sababtuna waxay Ciise calayhi salaam ayaa la dhalay 25 December. markaas ayaan leeyahay yuu yahay Masiix Ciise calayhi salaam? markaas ay leeyihiin Masiix waa wiilkii Alle. markaas ayaan u sheegayaa hadday runtiin tahay ma ii sugi kartiin jumlo kaliya oo cad oo aan madmadow ku jirin oo ku jirta Bible-ka oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay aniga ayaa ah Rabbi. sidaas ayaan aniga dacwada ku faafinayaa. maxaad adigu dacwada wadooyin qaldan ugu qaadaysaa? adiga su'aal ayaad i weydiisay ereyga ah ciid wanaagsan ma qalad baa? anigu waxaan ku leeyahay haa waa qalad. boqolkiiba boqol marka aniga lii fiirsho waa qalad. haddii aad tahay adiga midaan ogeyn waxa ay u dabaaldegayaan. tusaale si qalad ayaad u cabtay koob qamra ah adigoo u malaynaya Pepsi. laga yaabay Allah inuu arintaas ku cafiyo. sidaas darteed haddii aadan ogeyn sababta Christmaska loogu dhigayo boqortooyada Ingiriiska inaadan ogeyn ayaa laga yaabaa sababta loo dhigayo Christmaska ama aad ka timid wadanka meel ka baxsan. hagaag aniga waxaan aaminsanahay in ganacsi awgii loo dhigo. ma garanaysaa aniga waxaan aaminsanahay in loo dhigo arrimo ku saabsan ganacsi oo kaliya. taasi waa waxaan aaminsanahay waa ganacsi. meeqa meel ayay dadku joogaan oo isku guddoonsiiyaan hadiyooyin? maya ma ahan dana ganacsi. waa maxay sababka ugu weyn? ha warwareegin oo ha ka bixin mawduuca. aniga su'aalan ku weydiinayaa ma garanaysaa sababka ka dambeeya arrintani ganacsiga? waa maxay sababku? maxay ugu dabaaldegayaan ciidda Christmas? waa sababta dhalashada Ciise. waa intaas waad garatay. waxayna aaminsan yihiin in Ciise yahay wiilkii Alle. waa wiil Alle loo dhalay ayay leeyihiin. adigu arintaas ma ogtahay? haddii aad arintaas ogtahay oo aad adiga markaas u rajeyso ciid wanaagsan arintaas waa xaaraan. haddii aadan ogeyn tusaale haddii aad ka timid adiga Tombaktu oo aadan garanaynin waa maxay micnaha ka dambeeya u tahniyadeentaada adiga aad ku leedahay ciid wanaagsan ku dhaafa ayaa laga yaabaa dambiga. haddii aad si qalad u cabtay koob qamra ah adiga oo raba inaad cabto Pepsi Ilaahay inuu ku dhaafo ayaa laga yaabaa dambigaaga. balse haddii aad ogtahay oo arintaas aad u sameynayso inay saaxiibadaada ku wanaagsanaadaan ma ogtahay waxaad sameynayso? adiga waxaad ka dhisanaysaa boos weyn jahannama. waa sidaas walaalkay. si aad u gaarto hadaf sareeya ma banaana inaad u marto wadooyin qaldan. waxaa kugu waajiba inaad raacdo wadooyinka saxda ah ee laga helayo Qur'aanka iyo xadiidka saxiixa ah. waxaan rajaynayaa arintaas inay tahay jawaabta su'aashaada. بالمجد العظيم الأمنع صلى عليك الله يا علم الهدى.
الهدى يا مصطفى يا خير كل